Ku soo dhawow qaybta labaad ee casharka Extra Lessons. Haddii aad nala socoto casharkii hore, waxaan kaga soo hadalnay 10 jumladood oo aad adeegsan karto mar walba iyo meel walba. Casharkan maanta waxaynu ku baranaynaa 10 jumladood oo very important ah. Jumladda 11aad waa hab kale ama qaab kale oo qofka loogu tahniyadeeyo haddii uu ku baasay imtixaan ama jaamacad uu ka baxay. Waxaad dhihi kartaa ama aad ku odhan kartaa qofkaas lucky you, taas oo ah hambalyo. Jumladda 12aad hab kale ama dariiq kale oo loo dhaho markaad xanaaq basti tahay, ama aan ku tilmaamno inaad cadhada ama xanaaqa ku haya halkii ugu dambeysay uu marayo, haddeed ayna waxba kugu hadhin. I freaked out. Jumladda 13aad haddii aad ka yaabto wax ama qof si kedis ah oo lama filaan uu kaaga hor imaado, waxaad dhihi kartaa You've got to be kidding me. Alla adi miyaa, ma rumaysan karo. Jumladda 14aad haddii uu qof kuu sheego inaad dhoolla caddeyso ama aad noqoto qof faraxsan, waxaad ku odhan kartaa cheer up. Jumladda 15aad haddii uu qof si fiican u shaqaysanayo, waxaad ku odhan kartaa keep up the good work, oo macnaheedu tahay sii wad shaqadaada ama shaqooyinka noocan ah kor u hay. Jumladda 16aad haddii uu qof guuleysto kadib markuu fashilmay, waxaad ku dhihi kartaa there you go. Waan kuu sheegay inaad sameynayso, waan kuu sheegay inaad guuleysanayso, inaad waxaan ka baxayso mashaakilkan, caqabadahan, waxaan oo dhan ba waan hore kuugu sheegay. There you go horaan kuugu sheegay. Jumladda 17aad haddii aad meel ka shaqaynayso, wax yar oo daal ah laga dareemay balse aanad daalaneyn, waxaad odhan kartaa not a bit. Ma daalani, waan shaqaynayaa. Jumladda 18aad haddii uu qofku dhaho ma hubtaa waxaas, adna aad si fiican oo uu shaki ku jirin aad u hubto, waxaad dhihi kartaa there is no room for doubt. Jumladda 19aad haddii aad rabto inaad message ama SMS u dirto qof markaad xaafadda tagto ama firaaqaba aad hesho, waxaad dhihi kartaa I will text you. Macnaha fariin ayaan kuu soo diri doonaa oon kugu soo dirayo sida WhatsApp-ka, Telegram-ka, Messenger-ka, ama waxaad isticmaalayso ee aad ugu soo dirayso qofkaas message-ka. I will text you. Jumladda 20aad kulley jumladaha aan halkan kugula wadaagayo waxay u badan yihiin kelmadda haddii amaba if, marka waa wax kugu dhici kara, ku qabsan kara, oo aad la kulmi karto. Okay, haddii wax ku dhacaan qof uuna murugoonayo, waxaad ku dhihi kartaa maxaa la ooyeysaa, adiga ka fiican waxaad la ooyeyso, dhibka ku helay adiga ka wanaagsan. Waxaad ku odhan kartaa it is not worth it. Dhibka ku helay waxaan ku qabsaday adiga ka fiican,